السلام عليكم kusoo dhaw casharkii koowaad ee maadada anatomy casharkii koowaad ee maadada anatomy maanta waxaynu baran doonaa introduction to anatomy iyo waxaynu kala baran doonaa types of anatomy casharkani waxa uu hordhac u yahay casharo badan ee maadada tan ee anatomy aynu ku baran doono aad kala socon doonto halkan ina la soco casharkii koowaad ee maanta aynu ku bilaabi doonaa anatomy introduction to anatomy iyo types of anatomy oo aan ka taaban doono waxyaabo aad muhiim u ah ama qodobo dhowr ah kuwaasoo asal u ah barashada maadada tan ee anatomy haddaynu ku bilaabno qaybteena koowaad ee casharka oo ah introduction to anatomy waxaynu ku baran doonaa laba qodob qodobka koowaad oo ah medical terminology of anatomy qodobka labaad aynu ku baran doono definitions of anatomy qodobkeena koowaad haddaynu u baxno waxaynu ku baran doonaa introduction to anatomy khaasatan waxaynu ka baran doonaa medical terms of anatomy ama medical terminology of anatomy medical terminology of anatomy marka waxay noqon doontaa ereyga kan ee anatomy meesha uu ka yimid iyo macnahan waxa uu yahay ereyga anatomy sida aad uga jeedid waxa uu ka kooban yahay laba erey oo ah ana iyo tomy ereyga ana waa ab tomyna waxaa loola jeedaa waa kat luqad Greek ayaa laga keenay ereyga luqad Greek ahaanta ama verbka ay ku ahayd Greek ahaanta waxaa loo yaqaanaa anatomy oo loola jeedo marka waxaa loola jeedaa open for cut ama cut for open for cut ama cut for open labadaba waa la dhihi karaa luqadani markii aynu ka hadlayno medical terminology ahaan anatomy waxaa laga keenay luqadda Greek-ga waxayna ka kooban tahay laba erey oo kala ab oo loola jeedo ana iyo tomy oo iyada loola jeedo cut verb ahaan markaan u fiirino waxaa loola jeedaa anatomy oo ah open for cut haddaynu u baxno marka qodobka labaad aynu kaga hadli doono casharkan maanta oo ah qodobkaas labaad oo ka hadlayo introduction-ka khaasatan definitions of anatomy qaybtani marka waxaynu ku baran doonaa definitionada anatomy-ga definitionada anatomy-ga waa kuwa broad ah hal iyo laba ma ahan laakiin buugta inta badan waxay isku raacsan yihiin qeexitaanka kan ay soo socdo oo ah inay tahay study of shape structure and body parts oo ah inay tahay barashada qaabka structure-ka oo iyadana ah dhismaha body parts qaybaha jirka qaab ahaan iyo dhismaha uu jirka u sameeyay marka la baranayo waxaa loo yaqaanaa anatomy qeexitaanada qaar waxay sheegayaan inay tahay study of body parts inay tahay study of body parts qaybaha jirka markii la baranayo maadada lagu baranayo waxaa loo yaqaanaa anatomy qeexitaanadeeda waa ay badan yihiin labadan ayaynu kusoo koobanaynaa aan u gudubno marka qaybta kale okay qaybta ahayd haddaan soo barno introduction to anatomy qodobka labaad aynu kaga hadlayno maanta casharkeena koowaad maadada anatomy aynu u gudubno qodobkani waxaynu kaga hadli doonaa types of anatomy marka la sheegayo marka waxaa ugu caansan labo in loo kala qaybiyo normally markii typeska la sheegayo waa ay badan yihiin laakiin laba ayay isku yimaadaan labadaas oo kale ah anatomy in loo qaybiyo labo labadaas oo kale ah gross anatomy ama waxaad kaloo dhihi kartaa macroscopic anatomy iyo microscopic anatomy midatan ee gross anatomy-ga qaybtan waxaa lagu bartaa wax walba oo ay qabanayso naked eye qaybta anatomy-ga ama waxyaabaha soo hoosgala jirka qaybihiisa oo aynu ishayna ku arki karno aan ku aragno wax walba laakiin ishayna aanu ku arki karno waxaa loo yaqaanaa gross anatomy microscopic anatomy waxaa loo yaqaanaa waxyaabaha aysan ishayna qabanaynin laakiin anatomically inaan marnay waajib tahay haddaynu u noqono marka gross anatomy waxaa iyadana soo hoosgala ama subdivisionska ay leedahay waxaa ka mid ah wax loo yaqaano ama qayb loo yaqaano surface anatomy waa markii la baranayo external structure of the body wax kale maaha qaybaha kore ee jirka markii la baranayo waxaa loo yaqaanaa
surface anatomy waxaa soo hoosgala marka maqaarka oo kale markaan baranayno dermatology oo kale nailiska oo kale markaynu baranayno timaha oo kale markaynu baranayno waxay soo hoosgalaysaa surface anatomy haddaynu u gudubno qaybta kale oo iyadana soo hoosgalaysa gross anatomy-ga waa ay badan yihiin waxaa ka mid ah regional anatomy regional anatomy iyadana waxaynu ku baran doonaa regional anatomy iyadana waxaynu ku baran doonaa xubin hal system iyo ka badan hal goob ku yaala markaynu baranayno waxaa loo yaqaanaa regional anatomy aynu u gudubno marka systemic anatomy wax kale loolama jeedo waa hal system markaynu baranayno systemic anatomy iyo marka regional anatomy-ga inta badan labadaba system ayay ka hadlaan laakiin systemada ayaa kala ah systemic anatomy waa hal system marka aad ka hadlayso tusaale ahaan haddii circulatory system aad ka hadlaysid excretory system aad ka hadlaysid endocrine system nervous system aad ka hadlaysid waa systemic anatomy regional anatomy waa marka aad ka hadlaysid xubno hal system wadaaga ama xubno dhan oo goob ku yaala oo systemo badan isku wadaaga marka aad baranaysid qaybtaas waxaa loo yaqaanaa regional anatomy sida chestiga oo kale iyo madaxa oo kale marka aad baranaysid waxaa loo yaqaanaa regional anatomy okay qayb kale waxaa jirta iyadan loo yaqaano radiologic anatomy radiological anatomy iyadana waxaynu ku baran doonaa anatomy ama qaybaha jirka oo kaliya aynu ku arki karno markii caawinaad aynu ka helno imaging testeska waxyaabaha wax lagu imaging gareeyo ama aynu wax ku baarno oo ay ka mid tahay x-rayska oo kale ultrasound oo kale resultigaas soo baxo lafaha iyo qaybahaas kale oo ishaynu ku arkayno resultigii waxaa loo yaqaanaa radiological anatomy qaybtaana waxaa iyada lagu caansan soo hoosgalaya cytology iyo waxaa soo hoosgalaya tissue cytology inta badan runta markaynu isku sheegno histology iyo cytology histo means tissue cyto means cell barashada unuga iyo barashada nudayaasha waxay ka mid yihiin microscopic anatomy ay ka mid yihiin sidoo kale cellskan waxay ka mid yihiin microscopic anatomy waa waxyaabo yar yar aynu jirkeena arki karin labadaana waxa ay soo hoosgalaan microscopic anatomy casharkeeni aynu kaga hadlaynay maanta qaybaha anatomy-ga iyo introduction to anatomy aynu ku soo barnay ereyga anatomy meesha uu ka yimid macna ahaan waxa uu yahay definitionada ugu caansan qaybtan aynu ku baranay typeska oo aanu qaybinay inay tahay gross anatomy ama microscopic anatomy iyo microscopic anatomy oo aynu haddana ka sii hadalnay qaybaha kale ay soo hoosgalaya oo ah surface anatomy regional anatomy systemic anatomy radiological anatomy iyo kan oo iyadana soo hoosgala cytology iyo histology intaan ayuu inoogu eegyahay السلام عليكم